بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد ولا ليال هل كان ومقالة مقدشو عاصمة الصومالية قارهان دقمة ورطة النبضة قارهان مسجد كالليراهو مسجد بلال مساجد كان ولا ليال هذا إذن موقنية ومساجد كي بلال قديمي قاها كويا الله ورطة النبضة عاصمة الصومالية مقدشو wadada loo yaqaan wadada aadan cadde dhinaca bari ee qarax soo baxa ayuu masaajidkaas bilaal uu ku yaala waxaan ugu baaqaynaa walaalaha ina dhageysanaya iyo kuwa ina daawanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan masaajidkan aad arkaysaan masjidu bilaal oo bilowga ah oo sifirka hadda laga soo bilaabayo zero eber laga soo bilaabayo ulajeedada aanu ka leenahana ay tahay ilaa 2 dabaq inaannu masaajidka gaarsiino insha allahu tacaala haddii ilaahay uu noo oggolaado waxaan ugu baaqaynaa walaalaha ina dhegaysanaya iyo kuwa ina daawanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan masaajidkan aannu idiin soo tilmaannay inaad soo caawisaan soo saacidaan jeebabkiinna u furtaan akoonnadiinna u furtaan gacmihiinna iyo quluubtiinna aad u furtaan sababtoo ah waxaannu ka helaynaa faa'iidooyin adduunyo iyo kuwo aakhiraba iyo kuwo dhaqaale haddaannu masaajidkan caawinno gacan naxariisle aannu u fidinno faa'iidada ugu weyn aannu helayno waa maxabbatullaah ilaahoo nugu jeclaanaya haddii beydkan ilaahay aannu soo taageerno ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa axsinuu إن الله يحب المحسنين إحسان سمايا إلهي وجعليه كوا إحسان كسمايا محبة إلهي سبحانه وتعالى إلهي هدوك جعلاده هدفكي نلش هذا أتكلا هيد واد قارتي فإذا ذكر ولا ليال أنو كقاري إنه عاونت مسجد كان بلال وأنو صوت هاجرنو دسمي سنة أنو كغيب قادنو سيد النبي إنه شاقي صلى الله وسلم وبارك عليه وإن إلهي قري جنة ينوغر لسيو نبي صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحة وحكوليه من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة قفك مساجد أدس إلهي درتي اسمها وقيب قات إلهي درتي قري أيا إلهي وقتها جنة دحدة إلهي وقدسها الدنيا ولا ليال نلش أنو لون نهاي ونلول خيالي بري وأنو كتغينا قدر كأنو جوغينا وقدر آد وير markaannu berri geeriyoonno ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada guri ilaahay inooga dhisayaa sida nebigu sala allahu calayh wasallam uu ugu bishaareeyey qof walba oo beydka ilaahay ka qayb qaata faa'iidada kale aannu ka helayno walaalayaal dhaqaalaheenna ayaa ilaahay ku bulaalinaya oo ilaahay ku barakaynaya haddaannu gurigan ilaahay soo taageerno oo gurigan ilaahay dhismihiisa aannu ka qayb qaadanno waxaa ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وحاد بحسان بدل كيسو كخير بدن إله إذن سينيا سبحانه وتعالى هذا بقى دولار كأد كوب بحنيسو مسجد كان مسجد بلال وحكا خير بدن إلهي كوب لنقاضي إلهي إنو كوب بدليو عافمات كاغا كوب بركوبيا دقالها كوب بركوبيا الدنيا آخرة هذا ayaa ilaahay ku barakaynaya subxaanahu wa tacaala faa'iidooyinka aannu ka helayno waxaa ka mid a kurbooyinka walwalka dhibaatada adduunya iyo midda aakhire iyo caafimaad darrada in arrimahaasoo dhan ilaahay uu ku faydayo sida nabigeennu uu sheegay sala allahu calayhi wasallam nabigeennu wuxuu leeyahay sala allahu wasallam wabaaraka calayh daawuu mardaakum bisadaqa dadka idinka xanuunsanaya sadaqada ku daaweeya idan marka sadaqa wax lagu bixiyana waxaa ugu khayr badan masaajidda ilaahay oo hadda aannu dhex taagannahay masjidkan masjidu bilaal gaar ahaan hadda masjidkani waxaa ka joogsaday dhammaan cibaadaadkii ka socan jiray oo dhan waa masjidka aniga shakhsiyan oo abuukar xasan maalin masaajidkii duruusta iyo xalqada cilmiga aannu ka faafin jiray waxaa dhammaan laga raray oo ka joogsaday duruustii salaadihii
khayrkii masaajid ka socan jiray oo dhan way joogsadeen masaajidda kale ayaa loo wareejiyey marka si khayrkii dib loogu soo celiyo oo xalaqaadkii cilmiga iyo duruustii cilmiga ee khayrkii ka socan jiray masaajidka dib loogu soo celiyo aanu ka qayb qaadanno aanu u istaagno dhismaha masjidka masjidu bilaal waxaa intaas aanu raacinaynaa walaalayaal masaajidka waxaanu doonaynaa maraafiq fara badan inuu yeesho maraafiqdaa waxaa ka mid ah qayb dumarku ay ku cibaadaystaan duruusta iyo dacwadana ay kala socdaan waxaa ka mid ah qayb madrasa litaxfiid alqur'aan madrase aan ugu tala geli doonno insha allahu tacaala qur'aanka in lagu xifdiyo markaa khayrka aad soo dirsato ogaaw wuxuu kuu geli doonaa meelo fara badan ood mahdin doonto ciribtaada adduunyo iyo middaada aakhiro labadaba sidaas awgeed walaalayaal waxaa kaloo intaas aannu ku daraynaa waxaannu rajo ka qabnaa boosas in masaajidka lagu soo daro boosaskaasoo masaajidka loogu khidmayn doono loogu adeegi doono qaybana masaajidka lagu dari doono qaybana qur-aanka lagu xafidi doono casharrada cilmiga iyo diinta islaamka lagu fidin doono rajaannu taa ka qabnaa haddii ilaahay uu noo xaqiijiyo insha allahu tacaala marka ogaaw dhaqaalaha aad soo dirsatid meelo fara badan ood mahdin doontiduu kuu geli doonaa waxaan rajaynaynaa muslimiintu baaqeenna inay ka soo jawaabaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan maxaa yeelay wax badan oo khayra ayaan kaga barannay dadka muslimiinta ah wax khayr badan oo ay ka mid tahay markii baaqa khayrka iyo masaajidda dhismahooda loogu yeedho inay si degdega ay uga jawaabaan baaqa khayrkii aan uga barannay dadka muslimiinta ayaannu ka sugaynaa intaas waxaannu ku daraynaa walaalka muxsinka ama gabadha walaasha ah ee muxsinadda ah ee doonaya xibin muhima inuu masjidka bilaal uu ka qaato masaajidka birta ku baxaysa waa 600 oo loor wey 600 oo kintaal wey birta ku baxaysa masaajidka oo dabaqa noqon doona insha allahu tacaala qofkii doonaya birta keligii inuu qaato ajirka iyo khayrkaana uu qaato wuxuu masaajidka baqaarada nooga soo iibinayaa 600 oo kintaal qofkii doonaya xibin kale inuu ka qaato masjidka sida dhagaxa oo kale waxaa ku bixi doona masjidka 60 ku bixi doona 60 loor oo dhagaxa ayaa ku bixi doona shamiitada qofka doonaya inuu qaato waa 7,000 ayaa ku bixi doonta oo kiish oo shamiito ah qofkii doonaya jayga inuu qaato ilaa 60 loora ku bixi doona oo jayga ah carro ilaa 100 ayaa masaajidka ku bixi doonta alwaaxda ilaa 40 mitir kubo ayaa ku bixi doonta masaajidka qofkii doonaya xibnaha muhimka inuu keligii ajirkiisa iyo khayrkiisa aan lala shirkoobin uu maaragtaa gooni khayrka u qaatana waa sidaas qof walba xibin muhima ka qaato waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala masaajidku sidaannu jecelnahay iyo si ka khayr badan ba ilaahay noogu aqbali doono haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaah waalsalaatu wassalaamu calaa rasuuli illaah waaalihi wa saxbihi waman waalaah walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan saakay waxaan taagannahay masjidu bilaal oo ku yaalla degmada wardhiigley ama warta nabadda waddada aadan cadde barigeeda ama qorax ka soo baxa sida uu idiin sheegay asheekhan alcaalim addoktor abubakar xasan maalim waa masjidkii sheekhu duruusta uu ka aqrin jiray oo weliba hadda xilligan xaaliga ah duruusta leyfka ay ka bixi jireen lagu soo aqriyey tafsiirka qur'aanka fiqhiga axaadiista ummahaadka bukhaari muslim haddana nasaa'i kitaabkaa sunanka ayaa ku socday masjidka sida idiin muuqata walaalayaal waa la dumiyey dumintaasna waxaa sabab u ahayd masjidka biyuhu soo daayey dhismo qadiimahu dhisnaa waxaa marka walaalaha muxsiniinta caalamka daafihiisa ku nool sida sheekhu idiin sheegay aan ka codsanaynaa masjidka inay soo taageeraan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun biriga iyo jannada wanaagga lagu galo ma gaaraysiin ilaa aad bixisiin waxa aad jeceshihiin waxa qofku uu haysta bini aadamka waxa uu jecel yahay waa lacagta ilaa lacag 350,000 ah ayaa masjidka ku baxaysa qaybaha materiaaliska ama adawaadka binaha dhismahana sheekhu waa idiin dul maray qofkii qarash uga qayb qaadanaya iyo qofkii alaabta masjidka agabka u baahan yahay musmaar allaha ka dhiga u baahan yahay waxaan walaalaha muxsiniinta aan leenahay u fura qalbigiina iyo qaalabkiina qof walba sadaqa yaraan iyo badi ma kala gasho waxa uu baxsado ayuu harsan doonaa wuxuu nebigu xadiis saxiixa ku leeyahay
qof walba qiyaamada wuxuu harsan doonaa sadaqadiisa qofkii sadaqadiisu badnaato kulayl qiyaamaha ma arki doono halka qofkii sadaqadu ku yaraato meel uu gabaad ka dhigto ama uu ciirsado uusan qiyaamada heli doonin nebiguna waa noo sheegay xadiiskii sheekhu akhrinayey qofkii ilaahay dartii u dhisa masjid xadiiska imaam muslim bana allaahu lahu beytan fi ljanna ilaahay jannada ayuu guri uga dhisaa waa dareemi kartaa maanta qofkii guri adduunyadan ku yaalla furihiisa la siiyo oo dabaqa farxadda uu dareemi lahaa guri jannada ku yaalla aan ka dayacmaynin oo aan dumaynin oo aan uga baahnayn inuu dib habeen ku sameeyo ayaa ilaahay u dhisin doonaa waxaan aad u rajaynaynaa walaalaha muslimiinta inay masjidu bilaal ay soo garab istaagaan waxaa masjidku u yeelan doonaa hamiga sheekha allaha u fududeeyo allahana noo wada fududeeye meel dhulal badan ayaan u rabnaa masjidka sida madraso qur'aan oo masjidka raacsan oo qur'aankii lagu barto meel dumarka waxaa aad noo dhibay marka sheekhu hadda cashirka aqrinaayo gabdho badanaa bannaanka fadhiista oo masjidka aan geli karin meel in loo dhiso labadoo boos oo dersigooda uusa uga baaqan waxaan rabnaa meelo markii xafladaha la gaaro iyo muxaadaraadka ciriiriya masjidka ku yimaada meelo in loo dhiso dalabatul cilmiga masjidka ku taxan oo meel kasta caalamka uga yimid qololay seexdaanaan u rabnaa insha allahu ilaa 100 boos ayaan hamigeennu uu yahay walaal kasta oo muslima hal boos haddaa gadid ilaahay waxaan ka rajaynaynaa saakay boos jannada ilaahay inuu kuugu bedelo hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu